الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسنا نوحك بالله من يامانسا آيات لواب وقل يصدن الشنات سورة البقرة سورة البقرة أيه كسب سنة ما يأتي كهلي قيسك حراء كسب سن أحكام خاصة أحكام فوريتانك نجمد عروتا إيوه أولك مركي لفراء الدليا يترسل لهاين أرمها سوكسوعش islayagii baa laga sii hadlayaa ma ka sii hadlayaan haweenku intay ciddada ku jiraan oo inta la qoray ayna weli ciddadii ka bixin sheeko guur ma loola tegi karaa ma la dooni karaa ma la guursan karaa aayaddaa ka hadli doonta aayadaha ka dambeeyana waxay ka hadli doonaan haddii la furo meherkoodii see loo siinay تيبا مهر تيبا مهر لهاي أحكامتي قيسك مركا ولو جرا رب يقول سبحانه وتعالى ولا جناح وحدا بها عليكم بشي نماهن فيما شيء تهدي دنبيه كسو قال ماي شيء بس عرضتم أثر بيتان به سر ومن خطبة النساء حوالك دون دولا أو أما سأكننتم أرقصتان في أنفسكم لففيالكم لحظوا أرقصتان علم الله أن وحو أغالي أنكم إذنكم ستذكرونهن إلى الشيء دونتان ستذكرون إلى الشيء دونتان هن دمك إلى الشيء دونتان بألا أغالي أو أغاوي معنا ولكن لا تواعدوهن شيء ثاني ولكن لا تواعدوهن حلي مرتمنا سرا سقر سوريا دورك حولي مرتمنا والله قصر على قرنا إلا أن تقولوا إلى تلاحظان مويه قولا هذا المعروفا ولكن سليقان هذا الشرع يقان ولكن سمويه كائنا تلاحظان مويه سكرة قرسولي حول ولا تعزموا حق آمنين عقدة النكاح جورك جلد كيس جنتنت أما جلد كجورك هجو آمنين حتى يبلغ إلى أجار الكتاب كتاب كي لقري عدلة إلى أجار أجله مدشس إلى أجار واختجي لغط إلى أجار يعني جورك جنتنت ساحرين وهجو آمنين واعلموا واحد وناسا أن الله يعلم إنه يهمده ما في أنفسكم وحل ففيالك نقوله ونقوله فاحذروه كتكتونا سكتشر الله سبحانه وتعالى واعلموا واحد ذاتا أن الله أن غفور من يهمدك ما في بضل حريم وذلقار بضل من يهي تانوا هذا معه دنبيهم كسو قاعد ماي دورك عدد كتشري هذه هذا السربيبة أكل هذا شان ودونيتان يعني وحوي الشكاوس أنا عطيه هذا الآن عبين ومبرر عليه لكن سربيبا إلى تقول هذا الشان لبين كسو قال معي دمركاس ودمرك عمل لقب سي وعدد أي كتشيران أي تهي عدة الوفاة وآياتي ورغضيك على شيء أما منه ودمرك اللفوري فوريتان كودنا قلقد يوجد بيسلوه فرو اللون ninkuna noqosho ayna uga furnayn labada qaybood ayaa intayna ciddada ka bixin hadal sarbeed ah oo doonitaan ah lagu oran karo laakiin haweeneyda la furay ninku inuu ku noqdana uu heli karo intay ciddadeedii ku jirto lama shaqaasan saas oo si cadna hadal loo bereeri karo
sarbeebna laguma odhan maxaa yeelay nin bay xasuta sooma maadaama ciddo lagu noqon karo ay ku jirto ninkii furay bay xaaskiisi welta isagaa unbaa un la hadli karo oo guur kala hadli karayo isku noqosho mooye laakiin nin kale kama shukaansan karo sarbeeb iyo cadayntoona macna laakiin kuwa laga hadlayo ama waa kuwii laga dhintay ama waa kuwii dalqadii ugu dambaysay lagu furay kuwaasi marka inaad sarbeeb kula hadashaan wax dhibaato amale tacriifkaasi waxay leeyihin culimadu maalan inuu ku yidhaahdo oo kaleeto guurdoon baan basa guurdoon baan ciddadii bay ku jirtaa yani waxa way guurdoon baan ku yiri waxaa ka mid a maalan inuu yidhaahdo yani waxaan jeclahay inuu ilaahay ii fududeeyo haweenay fiican inuu ku yidhaahdo oo kaleeto rubba raaqibin fiiki alla maxaa ninku doonaya maxaa ninku raadinaya yani waxa weeye isagu isma cadaynin laakiin waa hadal sarbeeba hadallada noocaas oo kaleeta ayaa marka tacriifka la yidhahda wax cad ma aha meel foog haddii aad loogu fiirsado waa laga fahmi karaa laakiin wax ku cad ma aha taa inaad marka isticmaashaan dambi idinka soo gaari maayo ama wixii aad qarsataan oo qalbigaba ku qarsataan oo doonidooda macna waad rabtaan rabitaanka aad qarsanaysaan ee qalbigiina ku jirtana wax dambi idinka soo gaari maayo allah subxaana wa tacaala wuxuu ogaaday inaad u sheegi doontaan oo aad rabtaan inaad kula hadashaan doonitaanka aad rabtaan iyo guurka aad ka rabtaan arrinka alla waa ogaaday saas daraaddeed buu culayskii alla idinka fududeeyeyo intay ciddada ku jiraanna wuxuu idiin ogolaaday in aad sarbeeb kula hadashaan markay ciddada ka baxaanna si toosaba inaad markaa u shukaasataan oo u wada hadashaan taasaa laydiin ogolaaday maxaa yeele waxaa la ogaaday kollay inaydaan daynin calima allahu anakum satadkuruunahunna marna inaydaan daynin baa la ogaaday macna walaakin laa tuwaaciduuhunna siran laakiin si qarsoodi ah ha ula yabowtaminay taas culimadu qaar waxay leeyihiin yabooftankaas sirriga in badani waxay laga wadaa zina laga wada in zina laga wadaayo faaxisho iyo xumaan ha ku ballamina hana samaynina ama waxaa la dhihi karaa in ballan lagu galo intay ciddada ku jirto markay ciddada ka baxda in la isguursado walaakin laa tuwaaciduuhunna siran ballan in la sii dhigtaba intay ciddada ku jirto hadhowna markay ciddada ka baxda la guursadaayo taaha yeelina ballantaasi joojiya daayima macnaha qarsoon inaad hadal wanaagsan oo sharcigu wanaagiisa yaqaano ku hadashaanba mooye oo hadalka sharcigu wanaagiisa yaqaano muxuu yahay waa sarbeybtii hadda lasoo sheegay hadal wanaagsan oo sharcigu diidanay inaad kula hadashaan waa laydin ogolay oo sarbeebta ah laakiin hadal shareecadu diidan tahay maya kaas la diid wey macna ama leeyahay hadalkaa wanaagsani wuxuu noqon karaa in weligeedii aad ku tiraahdo gabadha hay dhaafino maaha iyada inaad shukaansuula tagtay laakiin weligeediiba waxaad ku leedahay gabadha haddii ciddada ka baxdo hadde wax weeyaan yaan lay dhaafin saasoo kalea ku leedahay yani waa qowl macruuf maxaa yeelay hadal iyadii aad ula tagtay maaha layna dhex maray maaha macna saas waxaa rabbi yidhi subxaana wa tacala markaa kadib walaa taczimuu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalahu yani guurka gurubkiisa iyo xidhidiisa ha go-aaminina oo ha go-aansanina ilaa ay ciddada ka baxaan dumarka iyadoo ciddada ku jirtay oo go-aan la gaadhin ah in la guuriyo ninka xaggiisana yayna ka dhicin iyadana yayna ka dhicin weligeeda inaysan ka dhicin walaa taczimu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalahu kitaabku waa ciddadii ciddadu waktigii loogu talagalay ilaa ay gaadho wey macna waxay culimada islaamku isla ogol yihiin oo itifaaq ah haweenku intay ciddada ku jiraan haddii la guuriyo guurkaasi inuusan asaxaynin waa la isla ogolyahay ama ciddatu rajca ha ku jirto ama mabtuuto ha noqoto mid dalqadii ugu dambe lagu furto ha noqoto lagu fura ha noqoto ama mid laga dhintay ha noqoto intay ciddada ku jirto wax caqdiya ma qaban karo haweeney hadduu min sheegtay inuu caqdiyina caqdigaasi waa baatil waana laisla ogolyo khilaaf kuma jiro macna waana middaa ilahi subxaana wa tacala uu addoommada ka reebayo nahyigu middaa uu kusoo arooray ayib kadib rabbi subxaana wa tacala addoommada digniin siiyey waxa uu laga muransanya culimada qaarkood ka murmayaan hadday dhacdo intay ciddada ku jirtay inuu guursaday oo uu meheriyey meherkaana uu ugu galmooday horta waa laysku waafaqsan yahay markii laga warhelo in la kala caydinayo mid walbana doonidiisa loo tacsiilayo la edbin
laakiin su-aashu waxay tahay markaa kadib markay ciddada ka baxdo ma guursan kara muran baa ku jira laakiin caqdigii inuusan asaxaynin oo guurku uusan asaxaynin taasi muran kama joogo macna waxaad ogaataan bu rabbi subxaana wa tacaala waxaa naftiina ku jira alla waa ogsoon yahay isjira waxa qalbiga ku jireen naftu ay ku sheekaysanaysay weliba aan soo bixin oon idinka soo fulin ilahi waa la socda subxana wa tacala saas daraaddeed khayr qarsada oo qalbigiina khayra ku jiro sharna iska ilaaliya way macna ka digtoonaada alla subxaana wa tacala waxaad la ogaataan alla subxaana wa tacaala inuu yahay midka dembi dhaafka badan oo addoommadiisa u dembi dhaaf xaliimoo rabbi u dulqaatay subxaana wa tacala ciqaabta markaba aan kusoo dadejinin walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahanin fiima carabtum wixii aad sarbeebtaan bihi isaga oo min khitbati nnisaa'i dumarka doonidooda ah khitbadu waa doonitaanka aw amase aknantum wixii aad qarisaan fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdooda waxaad ku qarisaan taa hore maxay tahay waa sarbeebteen waad sheegteen laakiin waa sarbeebteen dambi idinka soo gaari maayo tan dambana waxa weeye maba aydan sarbeegin oo maydan sheegina qalbiga waad ku qarsateen heble markaa ciddada ka baxda aad doonteeda guursata dembi kaa soo gaari maayo saasay macnaa oo aknantum fii anfusikum calima allahu alla wuxuu ogaaday annakum idinku satadkuruuna inaad sheegaysaan doonidda hunna dumarkii inaad u sheegaysaan inaad u sheegi doontaan buu ogaaday saas daraaddeed baa xarajka iyo ciriiriga laydinka dulqaaday oo la idinku ogolaaday intay ciddada ku jiraanna inaad sarbeeb ugu sheegtaan hadday ka baxaana dawaaba yani laydin ogolyahay walaakin laa tuwaaciduuhunna hase la yabohtamina laa hala yabohtamina dumarkii siran si qarsoodiya hawla yabohtamina oo si qarsoodiya inaad ku kulantaan oo zina ah ballantaa iyo waxa hala gelina ama si qarsoodiya ballan hawla gelina markay ciddada ka baxda inaad isguursataan ballantaa qarsoodiga ha gelina way macnaha ma jirtay ayib ilaa an taquluu inaad tidhaahdaan mooye qawlan hadal macruufan oo wanaagiisa la yaqaano oo hadalka wanaagiisa la yaqaano muxuu yahay waa sarbeebtii laydiin ogolaaday ama ma ahee waa inaad weligeedii kala hadasho intay ciddada ku jirto laakiin ayada aadan gaarin wey macna ayib walaa tacdimu ha go-aaminina cuqdata nikaaxi guurka guudkiisa ha go-aaminino go-aan ha ku gaadhina inaad gurudaan guurka xataa yabluqa ilaa uu gaadho alkitaabu kitaabkii ciddadii ilaa ay gaadho ajalahu waqtigiisii iyo madashiisii ilaa u gaadho ilaa ay ciddada ka baxdo oo ay ciddada dhammaysato ha go-aaminina inaad guurka gurudaan ood guurisaan way macnaha waclamu waxaad ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa fii anfusikum waxa nafdiyaalkiina dhexeeda ku jira afkuna ku hadlin adimaduna samaynin faxadaruuhu ka digtoonaado iska jira alla subxaana wa tacaala ciqaabtiisa iska jira haddaad shar qarsataan ood xumaan qarsataan ama zina qarsataan ama haweenay ciddo ku jirta shukaansigeedii iyo la sheekaysigeeda aad qarsataan xumaan haddaad qarsataan waa laydukula xisaabtan iska jira marka wanaag qalbiga ku haya wax ilaahay jecelyahay subxaana wa tacaala ayib waclamu waxaad ogaataan ana allaha alla gafuurun u yahay midkii dhaafid badan raxaliimun oo dulqaad badan addoommadiisa u dulqaata iyo dunuubta iyo waxasida ka dhacaysa hadday usoo noqdaanna ilaahay subxaana wa tacaala waa u dembi dhaafaa laa junaaxa calaykum in dallaqtum nnisa'a maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida marka waa dhaqan xumo iskaba dhaafa waxa weeye hadda ciddada oo haweenka lagu shukaansado ama lagula hadlo ama laguna guursado iskaba dhaafe dumar rag leh oo raggoodii la og yahay ayaaba yani waxa weeye la guursanaya maanta ama ayagiibaba tegahayo intay been sheegaan iskuma fadhiibaan bay rag kala guursanayaan warqax bay soomaalidu bixiyaan ama nin baaba intuu usoo haluusho naagtii uu og yahay inay nin leedahay yuu guursanaya kuwa ciddada ku jira ee ama ciddatu rajciya ama ciddooyinkii kale ku jira ee iyada shukaansiga loola tegahaya iska dhaa kuwii ragga qabidaba la shukaansanaya marka waa dhaqanxumo aad u liidato oo dad khisiisiyaba aad u liita ay ku kacaan sidaas way macna laa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahanin in dallaqtum haddaad furtaan annisaaa dumarkii haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna intaydaan taabanin aw amase tafriduu aydaan qadarin lahunna iyaga fariidatan wax la qadaray wamaticuuhunna mutcafiya dumarkii la furay mutcafiya amba bixiya cala lmuusici midka waa
kan loo waasiciyey kan waasiciyey oo risqiga loo waasiciyey dushiisa waxa ahaaday qadaruhu qiyaastiisa inta tabartiisa qiyaastiisa macna wa cala almuqtiri kan quud cidhiidhiga qaba quud cidhiidhiga midka qabee quudka lagu cidhiidhiyeyna dushiisana waxa ahaaday isagana qadaruhu qadarkiisa iyo qiyaastiisa bilmacruufi mataacan mutcasiin mutcasiya wamaticuuhunna ku xidhanta mataacan mutcasiin ama raaxeeya bilmacruufi sida la yaqaan yani wanaagiisa la yaqaano ugu mutcayo shareecadu taqaan xaqan yani mutcadaasoo xaqan xaq ah cala almuxsiniina dadka samafale ee wanaagga sameeya acmaashooda hagaajiya kuwaa dushooda xaq ku ah halkani waxa weye mas'aladani waxay ka hadlaysaa dumarka markii la furo yaa ciidda leh waxaan dhihi lahaa yaa meherle yaan samir lahayn dumarku waa afar qaybood midi waxa weeyaan waa mid markii la guurinayo la meherinayay wax meheroo loo magacaabay ma jirto ila waa bannaan tahay in meherkaba aan la sheeginba intuu yahay gabadhiina saa lagu guuriyey markii la guurinayo meherba looma magacaabinba ayadoon lala aqalgelinna waa la furay meherna markii hore looma magacaabin markii iyadoo weli lala aqalgelinoo ninkii aysan is aragna waa la furay midda noocaasoo kale ah wax meher a male waana middan aayaddu ay ka hadlayso laakiin maxay leedahay mutco xoogaa sabirsiin iyo qalbi kab ah oo lagu ambabixiyo bay leedahay midda labaad waxa weeye waa haweenay aan iyadana meherkii loo magacaabin laakiin waa lala aqalgalay ayadu waxay leedahay meherkeediiyo buuxay leedahay maadaama lalaba aqalgalay meher buuxay leedahay xaggeebaa marka meherkiisa loo garanaya qiyaastiisa gabdhaha iyada lamidkaaba looga qiyaas qaadanaya midna waa midaas midda saddexaadi waxa weeyaan meherkiibaa loo magacaabay waana lala aqalgalay iyadoo maxay leedahay meherkeediiyo buuxay leedahay midda afraadee soo hadhay waxa weye waa lala aqalgalay waxaan dhihi lahaa meherkii waa la magacaabay lalamase aqalgelin waxay leedahay nisfu lmahri bay leedahay meherkeedii loo magacaabay niskii bay leedahay markii la furo midda ugu horraysaan sheegnay oo midda inta la meheriyey meherna aan loo magacaabin iyadoo lala aqalgelinna la furay middaa iyada aayadan hadda aan akrinaynay baa sheegaysa midda inta meherka loo magacaabay iyadoo lala aqalgelin la furayna eenu nidhi waxay leedahay meherkeedii miskiina aayadda ku xigtaa sheegaysa labada qaybooda kaleetana qur-aanka intiisa kalaa laga dhexeeyo macnaha sheegayo marka wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala laa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahani in dallaqtum haddaad furtaan annisaaa dumarkii haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna intaydaan taabanin taabashada hadda maxaa laga wadaa galmadii baa laga wadaa qur-aankuna luuqadda xishoodka ee shareecada isticmaashooda yani sariig iyo xishoodka ku salaysanta waxaa laga xishoonaya oo laga sariiganaya kelimaadka ku cad hawsha noocaasa in afka lagu ballaariyaa la diidaya waana adul ilahayna maraya subxana wa tacala maa lam tamasuuhunna intaydaan taabanin oydaan u galmoonin aw amase tafriduu aydaan qadarin lahunna ayaga fariidatan yani shay la qadaray oo ah meherkiia haddaan labadaa mid kamida aysan dhicin yani waxa weye inaad furtaan oy wax la-aan ku tagto dambi idinka soo gaari maayo haddiise laakiin mid kamida ay dhacdo oo waa taabateen waad u galmooteen meherkeediio kaamilale soo ama waad u qadarteenoo meher baa loo qadarayoo ow yani waxa weeyaan fariidaa dhacday waxbaa loo qadaray markaana iyadana xukun kale qaadanaysa laakiin labadoodaba markii la isla waayo taabashana la waayo meher horoo la qadarayna la waayo markaasi ayayna waxba lahay dambina idinka soo gaaraya wax la-aan inay tagta macna maa lam tamasuuhunna intaydaan taabanin oo amase tafriduu aydaan qadarin lahunna ayaga fariidatan wax la qadaray shay la qadaray intaydaan u qadarin oo meherkii ah inaad marka furtaan dambi idinka soo gaari maayo ayib maadaama marka waxa weeyaan gabadhan la guursaday magaca guurna ku dhacay aqalgalna ay sugaysay furitaanna ku yimid laa shaka inuu qalbi jab imaanayo xogaa inay wax soo gaarayaan waxaa la doonayaa marka samaysiin
ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره ما لا فائدة كدوني سابق خسارة كاسوكا قلبي على وحبون نقلت سوساسنا مركا قلبي على وحبون ومتعوهن متعسية وأنبطحية يعني متعسية لوحا لجوة وحي وكو أنبطحلو قلبي جيدا لبوكا وقعنك كريم فقهاء آدو حي سبوك لسين متعبات انتين وكرتا عرفك أمبا كل اللي لما قال يا شرعي مرة دوس الحديدين عرفك على لما قال وحيون أما أنبطحين أما الرفاحة أما الصحيحة أما العجة أمبا معنى السيني ومعنى واحد يقول نبص بالسيني ومتعوهن إلى المرعى اللي لبت لما يرفع لك جدع قول مركي معنى واحد قرطع هذه انت اللي بمسيدة هذا لا نفره مين كدن بيه صوتنا مربع اللي بمسيدة ولا ليه صوت مربع اللي بمسيدة في وحبه ورفع وكان تعالى في الرحلة على يحوى اياه وحيالا بلنبع لقدرين يا لقدرين يا معنى ومتعوهن عن مضحية او معنى وحوى متعكسية قياس تبا مركة هذا لا لقدرين وحلي على الموسعي كواسعية رزقك اللو واسعية حوالها هايستاي دوشي سواها هذا قدره قدريس ما أهكا وحبه السنين هي كغنيك حوالها بضانيس إنه نوى البيت على أنه كل شيء ما قبل كوام بحيث ما نوى البقياس تسئي قدر ككبه إكراوها يكون حرمتها نوشى مستواها وكغنيش ما نوى حوالها بضانها هايستاي ما تحدحات مكوشنا ما درسته هو وصلسل كوشنا نوى البقياس تسئي قدر كيسوي معه على الموسيقى قدره وعلى المقتل كقود عيري كقبل رزقي الوعي السنة وكشي سواها هذا قدره قياسي السنة انت قلبة توتي ساعة وعلى كريم من الغد والماء متاعا متعسين يراحين الراحية بالمعروف لا يقانوا سيدا لا يقانوا شرعه التقانوا ولكن حق ذلك أرنقاسي واسبنا وواجبه حقا سبنانشو على المحسنين ضدك الصلاة فلا مؤمنين أي الدشور واجبه أيضا أي واحد يقول لي شرع العلوم ورمضان حوالك النوع عاصة مهر لآن تتغي مهر كقادرين المتعلق يا واحد هو لازم وواجب سنما ماذا مقامات سوالي هذا النوع متعلق هذا ومتعلق ما قال مالي نقوت بيان أقول لكم كلا تقول الإسئلية مويانة لكن المتعسين الصبيب يسمون يسكبحين هو الغنور علماء وحيديه قيت الهرط وواجب بيقار فضلي قبل وقيت المهر العام تتقيسا قيبها كالإساء لقد دود يأمنون عن دوتا أيضا يقلك أهلا يمعنا وإن ضلقتموهن هديئة فرطات دوركي من قبل أن تمسوهن إنت إذا تابنين تاب الشركهم والحال قد فرضتم إذنكم أقدري لهن أيها فريضة وحل قدري فالنصف ما فرضتم فعليكم دشي نوحى علي نصف ما شيء نسكي فرضتم قدرتين نهي أدو قدرتين الله مقعالي نسكي ملان إلا أن يعفون إني عفيان مريء أو أما سيعفوه عفيو البيدي كعني سوء كتشرو عقدة النكاح قولك قولتكيس نكاح قولتكيس يقولتكيس منك كعنتيس كتشرتاي إنو عفيان مريء أما أيجي الدمر إلا فرها عفيان مريء وأن تعفو إلى العفيان أقرب دواء شبرا للتقوى أنك عكسك تاسع دواء شبرا ولا تنسوها المالنا الفضل ديرات اسكت فضلدة إحسان كهفضلها المالنا بينكم تحدينا إلى إصدارات سيسان وإسوسا وقشان المالنا محايا لإن الله الذي ما تعملون واحد طويل إسان بصير في أرض يومي تنوى قيل في دمين شيء نور هذا ضمتي فرطان إذنكو تافي أو لا أقل قليل لا أقل قلك وحا لمن يسير علماء الأبضيين جماهير طول القضاء لا أقل قلك وحا لمن هديء لخ الوضي قواني مكة اسمه ستين كذي بارنين فلا الموت قل إلا والله اسكوارك هذا هو تحتاول مرضى عدان لقد موتي أما أبقى الموضي لمت مهيري يودبا واجبي سيلا وحا قبط أئمة الصدح داخل خلفاء الأربعة والحكمين جماهير العلماء وقتين طيب قلموا لمت مركا هدينا أبقى الموضي هذا فرطان يمكن أبقى الموضي لكن مركي لما هرينا يمهر الله مقعالي مركا أفرتين مهركي أبو مقعودا نسكي بلا ما دام الله مقعالي
iyadiyo tii hore farqiga udhexeeya muxuu yahay farqiga udhexeeya tanna markii la meherinayo meher magacaaban baa loo sheegay tii horena meher magacaaban looga sheegay waxay iskaga mid yihiin labadoodaba iyagoo loo galmoonin baa la furay sooma laakiin halkaa hore macnaha yaa udhexeeya farqi u yahay marka meherkii aan loo magacaabay ee hore loogu qadaray niskii bay leedahay kun ku leedahay inay cafiyaan mooye way heli karaan inay iska cafiyaan oo yidhaahdaan war niskiina waa ku cafiya kacaskata xaligageemusi furun bas ama uu cafiyo midka ay guurka guntintiisu ay gacantiisa ku jirto kaasi yuu yahay waxaa loo badan yahay inuu yahay ninkii oo muxuu cafinaya isagu cafiga isagu uu cafinaya waxa weeyaan waa meherkii oo dhammaystiran gabadha inuu wada siiyo niski bay ku leedahay sooma in yidhaahdo maa niskiina waan ku siin niskii kalena waa waan kugu dariyo meherkii buuxaa $200 haddii meherku ahaa 100 bay leedahay sooma 100kii kalena waa kugu daray 200 qaar aw yacfu alladii biyadihi cuqdatu nikaax iyada cafiga ay cafinaysana waxa weeye maadaama aynaan aragoonaan isla aqalgelin inay tidhaahdo oo waxay iifayo yihiin hadda wax labadaaba inay dhacdo mooyaane xuguma meesha soogna waa meesheeda isaguna waa cafin kara iyaduna waa cafin karta cafigaasu weliba addoommada kula tawli inaad cafi oo laysu tanaasulo oo gabadhuna ay ninkii wixii u cafido isaguna xaggiisa ka dadaalo gabadha uu wixii ay ku ahay u xoro oo raad uu ka dhaco wanaaggaas fadliga iyo ixsaanka iyo samafalka dhexdiinana ha halmaaminaba rabbi yidhi subxana wa tacala saas weeyaan ayadoo wax dhiba laysu qabin oo dad yani waxa weeye qalbigooda ayna dhibaata kala gaadhina oo laysu samafalay ilan berito in laysku soo noqdaa laga yaaba intaa waxaaba ka weynba maanta dadka waxaa ka dhexeeya iimaan baa ka dhexeeya waa dad mu'miniina oo iimaanku walaalayo walaala ah saas daraaddeed in lays xumeeyo maaha in laysu gafana maaha in sida gaalada laysula dagaalamana maaha ee waxa weeyaan in laysu samafalo midba midka kale qadariyo wax uu cafiyo u tanaasulo taasuu ilahi subxana wa tacala inagula talinaya rabbina subxana wa tacala waxaad samaynaysaan waa arkaya iska jira way maca wain dallaqtumuuhunna haddaad furtaan dumarkii min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabanin walxaal qad faradtum idinkoo u qadaray taabashadiinna ka hor haddaad furtaan waqad faradtum idinkoo u qadaray lahunna ayaga fariidatan shay la qadaray oo meherkiiya idinkoo u qadaray welina aan taabanin haddaad furtaan fa nisfu maa fa calaykum dushiinna waxaa ahaaday oo idinku waajibaya nisfu maa shay niskii faradtum aad qadarteen oo aad u goyseen u magacawdeen markii aad macnaha waxa weeye aad guurinayseen ilaa an yacfuuna inay cafiyaanba mooye oy niskii isaga ahaa ay ninkii u dhaafaan aw amase yacfuwa inuu cafiyo mooye alladii minka biyadihi gacantiisa ay ku jirto cuqdatu nikaaxi guurka gunudkiisa yuu gacantiisa ku jiraayo furi karoo xiri kara waa uu ninkiisaba saas weya asagana cafigiisu waxaynu nidhi niskii kale inuu gabadha u buuxiyo oo meher buuxa u wada siiyo cafigiisu waa kaa culimada tafsiirka qaar ka mida waxay marayaan aw yacfu alladii biyadihi cuqdatu nikaax waa weligii gabadha weligeeda ah oo waxay leeyihiin isaga laftiisa awood buu u leeyahay gabadha xaggeeda isagoo wakiilka ah inuu xuquuqdii wax ka mida ka tanaasulo oo uu niskiiba u cafiyo ninkii gabadha furay sidaana culimada qaar baa maray laakiin ka horaa loo baraya wa an tacfuu inaad cafidaan baa aqrabu dhawaansho badan litaqwa alla ka cabsiga saasaa u dhawaansho badan walaa tansawha halmaamina alfadla yani isdheeraadsiinta baynakum dhexdiinna aad isdheeraad siinaysaan iyo inaad isu samafashaanoo haweenayduna ay qaybtii tuurto isaguna uu gabadhii u kordhiyo u dhammaystiro fadligu waa kaas ina allaha alla bimaa tacmaluna waxaad samaynaysaa basiirun kii arka wey macna sidaas weyaan doqoni meel lagu kaftabay moodaa in lagu kala tagay jira soomaalida dad badanoo ama iimaankooda iska tabardaran yahay ama diintaba fiqi iyo aqoon badan aan unahayn waxay moodaan haddii laysfurayba in la dagaalamay saasna ma ahaynto dadka wax badan baa lagu kala tegi karaa furitaankana waa shay ilaahay jidaya subxana wa tacala mana aha labadii isfurtay inay dagaalantay waa dad walaalo iimaan walaaleeyey fadli iyo samafal iyo samafal bal dadka kale intooda kale iska xiga maxaa yeele marbay isku soo dhawaadeen sooma xarig baa mar isu keenay muuminiintii kale bay iska xigaan oo iyagaa la doonayaa inay si gooniya isu ogaadaan saas way macana intaasaa marka waxaa lagu soo gabagabeeyey dib baa loogu noqon doonaaye axkaamtii ku saabsanayd qoyska furitaan iyo guur iyo ilmihii dhashay iyo nuujintiisa iyo ciddadii iyo halkaasa lagaga soo hadlo salaadii baa marka laga hadla soo maaragta waa wax isku koosaaray
أحكام الشريعة وصاصة يسوقه وأنت يسوقه صارت معها واحد اللي يدعي محايا روح مؤمن كإيمان كله حتى أي السوق عالي قال سيسوي كل شيء يصلاد وقت يسوق الناس ما كان يسلمك المساج كإيمانه صح السلمك يروح عليها بحاجة في سيدات قبطان بوريتانيا وإنجليزي المهنة ما يشكلش وحكى البحثان اللي إلى مركا نرشى هلك الصعر وقارنا حاجة يجتمعي نرشى روح مؤمن كأمنا أي أسكود عجيز ساس دراجة بشرعات السكود هدوغوين يسايو صلاة أمر لغا هلي جهاد بار لغا هلي وحا لغا هلي يعني عبادات كلا لغا هلي معاملات كلا لغا هلي بيع يشري بار لغا هلي وهكذا معنا حافظوا الحزبية برب سبحانه وتعالى وإلالية على الصلاة صلاة بشرة الحزبية شرط الصلاة الحزبية والصلاة صلاة ينسيقون الحزبية الوسطى يقول عيس وقوموا استاجا لله إله الدرجي ستاجا قانتين حالاتين قوة بيحصل وأليه الدل ليس سبحانه وتعالى فإن خفتم هذا العبسة صلاة الشمس حزبية شمس الصلاة حزبية وحا لقوة صلاة واختيار ودتكذا عمل وحا أغفر ببدن عمل وحا أغفر ببدن سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واختيار لتكذا أركانتي وواجباتي صلاة إلالية حزبية صلاة وصص وقت يدل الإلاليو قال كلهم بدنا يلا الإلاليو وشرع هذا الوافجيو شمس صلاة المركي صلى الله عليه وسلم وحا هدنا الله حسين صلاة إلى الصلاة الوسطى إذا يدا سيقوني وقال كيقلي وقوني لسي ومدى سيرا أحاديث تكو أصحري علمنا رؤوب بنيين وصلاة العصر صلاة العصر حديث صحيح مسلم كي غيره وكسو عربي هي حديث سنة هي مسانيده وكسو عربي فرمضان أيها قياحيس النبي وكل صلى الله عليه الصلاة الوسطى صلاة العصر إليها صلى معنا حديث كان وكسو عربي ونكي صلاة العصر أي دارته إهل كيسي يحولي يسيب روح لغا قاضي وكلو كدغي خسارها سوق عليه حديث كلام مركو يقول لي هيدا فقد حمد عمل كيسي ضواب وطيب صلاة عصرين إلى عصر معنا مركز صلاة عصر مدمان دوني إليه والصلاة الوسطى هو بحيث صلى معنا بحاثه أما وحا لقوض على لمن وكوه لمن وكوه بيان أما وحا لقوض عليه ويقبو خير برد لأن وحا يوصف بلد شيء تحت حد وشيء هو أخياس صلى سواء يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا صلى الله معنا طيب مركز ربنا سبحانه وتعالى إلهي درتي يسوتايا إذنكو قانتين إذنكو أبعثن ألا درتي يسوتايا يعني وحا لقوض إذنكو يعني ألا يسود الليل وإسليلي وفرقني ربي يسوتايا سبحانه وتعالى سيد البخاري هي مسلم لمنه وحا قصة أروري النبي صلى الله عليه وسلم وقت جيسي آيات بني إنتي سنسود دي صلاة دحل الألقوة لهمج يقول ضدت الصلاة كتشرا بعد الله وضيك ولهمج ورلاتي مثل القناعسي وصودا ما أنتم يغلق وهو نتكشف في سنة صلاة والمجد آيات بني مكي سنسود دي أيها وحنا الأمر من الصحابة إلى مصرام دحل آمصنا وقوموا لله قانتين وكما شفع صلاة مثل جسد أمس وإذا صلاة ناقص سيئة كلية تكون مشغولة لكن وإذا كما تبع حافظوا إلهية على الصلوات صلاة بشرة إلهية شمسة والصلاة هي صلاة بشرة الوسطى ودعي في تارس الدنيا إلهية أصل العصر وقوموا استاجا لله إله ذاتي ستاجا قال فينا حالات قوة بأسر الله سبحانه وتعالى وأمر كيسا قابلني وآمس يسد لنا رب سبحانه وتعالى فإن خفتم حالة خاصة مركز الشيء صلاة إنسان مرنا بيعكرين حالتنا إنا لقاعة كين إنت وجوغو مالكاga iyo miirkaagu intuu joogo salaadu in laazim ku taabay ayadana sii qays waxa la yidhi khiftum hadal cabsatan oo xaalad cabsiya aad gashaan farijalan fasallu tukada rijalan xaalatin kuwa lugaynay aw amsafu kubaran wa wahsaran idinku aad tukada fa idha qurti amintum an amin waqtan oo aad cabsidii ka aamin noqotaan fadhkuru allaha allah salaadi sideedii u tukada كما سيد الله وهودين بري ما شيء لم تكونوا أيضا هين تعلمونه ويقال طيب هذه العصر أنا ما لا يعصري أنا تقال ما لا يعصري روحي هدو صلاة دي سيدي لو قلت لك لأي مركي نبقرية أي حي وقلتك له عصر أنا عدو ما لغاية رأيه شانس كفا إذا استطغال بكشرا أنا عدو كانوا حيوانات وحيالات دكتو معنا وحوة ديك قاسيوك عصري حتى العصرتان
صلاة حتين وأنا حصلها يا يوم دام أنا حصلها عذر على سواء حالة الضرورة صلاة من الكرية ما في الله سيد المكة هو سورة كتوت كوي معنا وحاولت يدونا في سورة النساء marka jihaadka lagu jiro dagaalka lagu jiro cadawga la soo joogo salaada jamaacada sidii loo tukan lahaa rasuulka nisaa u teegona haddii xaaladda ay cabsidu ka sii darto oo xaalad halis la gaaro oo istimaadka laga cabsado ama dagaalkii laguba jiraba ay soo gasho xilligii salaadu see loo tukanaya si alla sayidin ku suuroodo u tukanaya marka idinkoo weeyo ordaya oo xabada iyo masaxidaya idinkoo gaadiid saaran oo dabaabaadkii iyo macnaha waxa weeye qalabkii lagu dagaalamayo dusha ka saaran si alla sayidin ku suuroodo u tukado marna salaada waqtigeeda ka tegin waymaan طيب arkaantii in lala imaado loo baahnaa haddii intaan la imaan kartana waa la imaan intaan la imaan kari weydana waa ishaari tilmaan unbaad kaga bixiyo yani inaad tilmaandoon ubaad ka soconaysaa macana xataa seefaha oo laysula tegin iyo dagaalka socda adoo ordaya adoo galgalanaya si alla say kugu suuroodaa u tukanaysaa macana farijaalan aw rukbaanan waa goorma waa markay xaaladdu ay ka sii darto xadiid cabdullahi bin cumar warinaya baa wuxuu leeyahay mustaqbilii alqibla wagayra mustaqbiliha ama qiblada u jeedsada ama ha u jeedsanina markaata xaaladdu macnaha xaalad caadiga maaha saas weeyaan waxay tilmaamay marka marnaba inaan salaada laga tegin marnaba inaan salaada laga tegin markaasaa la istactin laha oo la dhihi laha dib baad ka qallayn doonta sooma fududa soo kama fududaatay in la yidhahdo dib baad ka qallayn doontaane hadda maadaama aad jihaad iyo dagaal ku mashquulsantihiin dagaalka wata hadda markaad soo degtaan oo dagaalku dhammaadana intii u noolaata salaada ha qallayso soo taas kama fududaatay waa sida qadanka soomaalida in badan u yahay salaada waqtigeedii soo gelaya wax mushkila ma haysa ama xoogaa waa ganacsiga ku yara mashquulsan markaasuu ku leeyahay caawan shanta salaadood tukan doona salaada waqtigeeda in laga dibmariyo wax loogu leeyahay maaha mana ansaxayso waxaad doonta ku mashquulsano si alla si ay kuu qabato u tuko xataa adoo xabsi ku jira oo xidhan hadday kugu soo gasho saxaabaday kugu taalo kaadi kaa buuxdo meesha aad taagan tahay kulligeed ay wada wasaq iyo saxariya xidhaadin tahay halkaa ku tuko mana soo celinaysa salaadii waa saxaysa laakiin dib baan ka qallayn doonaa warkaasi war jira maa diinta kuma yaalla saas macana ayib fadkuru llaha waxaa la yidhi marka haddii xaaladdaa intaad ka baxdaan xaalad nabadgelye aad ku noqotaan ilahay xusa ilahay xusa maxaa laga wadaa macnaha waxa weye salaadii si dhammaystiran markaa u tukanay xaaladii daruurada ha ku tegine xaaladdaa nabadgelyada mar hadday tihin salaadii si dhammaystiran u tukada fadkuru llaha saasaa laga wadaa macana faida طma'nantum فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء قلت إن شاء الله تعالى مكان حفشان وعصيدة كبحران صلاة سيدة مستنى ومكان تكون معنا سيدة إلهي إذين بريد وحيدا كريم فدام إلهي وحيدا كريم إذين بريد ويكمل عبادتي حارد وأي هلست عادقشان وعصيد تنادى سيدة بقدر الله مصالح لي أدونيدي من آخرتي وما دام إلهي إذين بريد كشف لي أمها العلي رب العزة سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فإن خفتم هذه على عصتان فالرجالا فصلوا تكذا رجالا إذنكم مغيره أو أمسه ركبانا إذنكم وحسارا فإذا قلت أمنتم الآن النقطان العصيرة كبحران فاذكروا الله نساء وصلاة سيدة ميسر قلت كذا كما سيدة علمكم إذين برين ما شيء لم تكونوا أيضا أهين تعلمون كوية كاملة أوكرنا جماعة علمك إله إذن سوى النعمة كأبا يعني وحو يا ربي وشكري ذكر الله الإيمان والويسر هذا الحالة أن يشاء معه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم عجيب ما هو نقضي وكي أنت الصلاة كسر صلاحنا فريتانكي هي عددي هي حالة هي عجيب ما هو نقضي وعلى الذين معدل معها يعني دورتي لا تنتهي دوركي laga dhintay iyo ciidadoodii oo hore uga soo hadalnay dib lagu noqdo walladina kuwa yatawaffawna wa oofsaday kuwa la oofsanayo oo minkum idinka mid oo wayaduna ka tagaya azwaajan xaafas ka tagaya wasiyatan falyusuha dardaarmeen wasiyatan dardaar liazwaaji xaafaskooda ha u dardaarmeen mataacan raaxasin والراحين والراحين هو بالضربة إلى الحول السنة انتي اللي جاي غير إخراج دحلعان هو بالضربة قليل اللي جاءت انتينا ويسهل هو بالضربة
فإن خرجنا هبين بحان ويبو خيار كودي إسكور أبحان فلا جناح واحد دنبي عليكم دشينا معهاني فيما شيء تحدي دنبي نكسو قالما فعلنا أي سميان دركات في أنفسهم ومففيان قوضة نحن أي كسميان ومن معروف شيء ولا جيس ليقانا وشرعه التقامور حبين مكة يوم سميان البيت بحان بيب إذن كي نكسو قالما إيدن والله أعلم عزيز ومثل غالبا حكيم وبرسة ورب سبحانه وتعالى آيات الوحيدة kuwa dhimanaya xaasasna ka tegay markay dhimashadii kusoo dhawaato is yidhaahdaan waa dhimanaysaan oo xaaladii naxariis bay gashay ha dardaarmaan xaasaskoodii ha u dardaarmeen 1 sano in nafaqa la siiyo xaasaskay ka dhimanayaan 1 sano in biil la siiyo guryadii agaga dhinteena ay ku jiraan dardaaranka ayaa loo dardaarmayaa dadka dhaxal kale buu dardaaranka uga tegaya xaasaskayga maalihii guryihiina sanadha ku jiraan sanadkaana waa in xoolahan ka tega diil laga siiyo mataacanka waa diilkii hayra ikhraajina waa meeshay deganaayeen inaan laga saari wanaana labada arrimood ayay dardaarmayaan oo ha dardaarmeen rabbi subxaana wa tacaala ayib aayaddan soo marnay marka maxay ahayd والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أفر بلوت يتنبري بي سوغيان ويعدد كجرا آيات فنوصة في البصار تمام عيان هاي 1 سنة علماء السيء أبدا يجين جماهير العلماء وحي قوان آيات هوري أيام نستخبي أو حكم كي آيات دمدد بالتشيء آيات هو الرئيس حق سودكتان ومركي هورا وحي عين هوين إذا هدين لقاكمتو 1 سنة إلى عدد كسطو halkaa sanada gurigii ay deganaato nafaqa iyo biil ay yeelato saasaa horaysa waa la bedelay xukunkii noocahay waxaa ka dambaysa aayadda xagga qoraalkiiyo misxafka ku horayso odhanaysa 4 bilood iyo 10 beri muddadii kusoo aroorisa saas daraaddeed aayaddan xukunkeedii waa la bedelo waa nasakhan tahay saasay culimada intooda badan ay qabaan saas maana laakiin culimada qaar ka mid ah waxay leeyihiin aayadda iyo aayadda labaad oo fi suuratu aayadka noomaan suuratu nisaa oo dhaxalka ka hadlay marka maadaama dhaxal la siinayo way dhaxal leeyihiin dardaaran male waa kan soo marnay ruux dhaxal leh inuusan dardaaran lahayn soo marka dardaaran male muddada ay ciidada ku jirayaan oo muddada aayadda hore sheegtay aayaddani marka waxaa nasakhay aayaadkaasaa nasakhay ayib والذين قالوا يتوفون الأوصلي وذوكم إذن كمد أو يذرون كتغي أزواجا حافظ وصية فليوصوا هدر دارمين وصية دردار لأزواجهم حافظكم هدر دارمين متاعا راحين هدر دارمين راحين الراحسين وهو نفقدين إلى الحول السمن انتي لقادين إلا الراحين وراحين لما بيل السين غير إخراج هدر دارمين بحين الآن إلى بحنين وقريه لقصارين هدر دارمين فإن خرجنا فلا جناح عليكم وحيكاهي sanadka isaga guriga ku jiraan guriga loo daynayo haday iyaga loo marato sanadkii oo dhammaan inay iska baxaan oo guriga kale qaraabo aadaan ama meel kale kireystaan marka kadibna waxaan sharaacadu diidaynin ay naftooda ku sameeyaan oo isu qurxiyaan in la guursado waya macna markaas wax dhibay idinka soo gaaray saas macna wax dhibay idinka soo gaaray طيب فإن خرجنا هذي بحان أو gurigii lagu furay ay gurigii lagaga dhintay ay ka baxaan fala junaha wa dambi alaykum dushina ma ahan fi ma fa'alna wa ay sameeyaan fi anfusihim ziyaratu waxay ku falaan oo min ma'rufin shay wanaagisa la yaqaan sharaacadu waxay ogashay haaday ku sameeyaan naftooda lama diidana inay isku qurxiyaan oo isu diyaariyaan guur iyo shukaansi iyo sheeko guur inay isu diyaariyaan marka hadii sharaacada u ogol dambi idin kale idinka soo gaari maayo ama weligii ama xaakimkii muslimiinta cidiina mas-uulka ka ah dambi idinka soo gaari maayo iyagana dambi ka soo gaari maayo macna saas weeyaan culimada qaar baa waxay leeyihiin aayaddu mansuuqa maaha lama nasakhin aayadda xukunkeedu waa joogaa ee labada aayadood midda horena waxay ka hadashay 4 bilood iyo 10 beri tiri waa muddada laasimka ah aayaddanina waxay ka hadashay muddada inta dheeraadka ka ee sanadka ka soo hadhay waa meeqa waa 5 bilood iyo labaatan waxaan ila macna ka badan 7 bilood iyo malaha waxa ila labaatan beri baa taas afar inta wixii ka dheeraada waa dardaaran waa khiyaar dadka dhaxal kale bay u taala hadday iyagu u daynayaan iyaga jirta hadday diidayaan ayaga u taala
laakiin isagu u dardaarmi karaa sooma laakiin ayaga ogolaanshaha iyaga iskale afartaa bilood iyo 10 beri laakiin horey loo soo sheegay iyadu waa laazim ma bedeli karaan khiyaar loogama fura وبالتالي ماشي الوفرة ماشي لقى انتينا كما بحي كرام ساسي أفرطها بلادي ترون قبل ساسي معنا طيب والله ألا عزيز ومثل خالد وهي حكيم أفرسه وللمطلقات كوى الله فريوحة أسونا علي متاع متعسين راحين بأسونا بالمعروف في وراجي سلي يقانا إنه الرحيم ومتعلم سيه حق ذلك أرنك سواسونا وواجبي حق سقناشو على المتقين قوة على كعصر دسوة بسقنام أرنك سواشي متقين دسوة لازم قوة كذلك سيدا سنة يبين الله عظيم لكم إذنك آياتي سيدنك عظيم لعلكم وحد مذنتين تعقلون إلى العقل يلبان ومحبانتان حلال دمركي اللفريق وثمان أما مد لا عقل قلها النقص أمينا لا عقل قلها النقص أما مد هرين مهر لهم يعابها النقص أمينا الله مقعابها النقص مطلقات كي اللفريق وثمان وحيليهين متاع بيليه وحقاقي أين الله ينسبر السيني في شرعه التقانو ونأكسنو نوال بتبرتي فيها تاكتي فيها كرشلعانا إن الله ديرو الله أنبضحيه الله سمد فيه أيها اللقدون يا أيليه المطلقات وأنا حق ذاتك متقين تدوشوا ذاك السبنا ذاتك الله كعبتني أهل الإيمان يا حقا تدوشوا ذاك كل الزمياء منك وحفران متعدد مطلقات النوع يدورها نقص sidaasi hadalka waxa uu dhigay oo macnaha guud qabtay oo yiri haweeney kasta oo la furo nooceeda ha noqotee mutca u waajibaysa culimada qaar kamid waa qowl Imam Shafi'i waxana rajaxay Imam Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari culimada kale waa qaban sidaas daraadeed aayadana waa laga faa'iideysan oo rabbi wuxuu yiri haqqan 'ala al-muttaqin xaga laga mari marka haqqan 'ala al-muttaqin waa shay sugnaaday oo waajibay muttaqin dushada ku waajibay macna marka leerkiina hala sii waxa sabirsiina la loogu daro qalbi kaba sidaas weey macna wali mutallaqat waxa rasuulada ku wala furay mataacu rasuulada mutacassim bil ma'ruf silla yaqaano lagu mutacassim ma'ruf kani waa sida bulshadu taqaano urfigi baa loo noqonaya macna markii ay noqoto intee la siinaya hal xadido xagee loo noqonaya dhaqanka bulshada loo noqonaya شرعنا أين تيدنين وعقشة بالمعروف محايري قاعدة وحي تاي شيء كستوء الشرع وكسو عروري شرع يقول أوسن حديد يسوح الله نقول يا عرفك الله نقول فاسمعنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا واصبنا لذلك أرنك في حقا صبنا على المتقين قوة الله تعصر يدوش رأيوك صبنا لي ونقد دوريا كذلك السلاس يبين الله عبين لكم بذلك آياته سيدك عبيني بل انت آيات لغسوها اللي والمسألة لغسوها اللي والنوفة فهي سو عبيننا ساسو كانوا لا آياتي سيدك لبديه لعلكم وحد مدنتين تعقلون إلى عقل يالتان وفهمتان بالمدنتين معنا يعني وحل ينكرها إلى عقلنان وفهمتان وقالتان فالنكبرين معنا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم غلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم آيات وحال بدقلي إلا يحضر الجهاد في الألعاب ما يحضر وحال ظهر مرينا يا قبرليك روح السكة استهدوه تحذروا إنه سنجيري يموت باتشين كريم دقالوا قلينا جيري ده هذا مسجد الدجس عرب أبجيري كعربتينا كاتاشن مس قولي كامرك الصلاة بامرك كنت دقالك لقاهم شيء بني إسرائيل باقي صدوا دي نيروسوا قادني هي موقف كي يستاهل مركو إله دقالك أمره سبحانه وتعالى إنك أبرك لنوشي دايو وحال لنا ليه عربك عرب إنسانة كعرب إنسان رجل استعرزان يعني وحوى أجل دبك ماي وإلهي قريب كدبك ماي ومعه ألم ترى ميادا أرك ميادا أركيني أما ميادا أغانيه معه وأغان شهاية أي أوسن قالين إلى الذين كوي حقهم يعني الرعادة يا مرنا واحد لذا قلبية لذا مرنا بصرية لذا مرنا ينبع وحركة مرنا رعاء وأركتيه وقلبك الله السمالة لماذا الفقهاء وعلماء تصير قابس بالليل وحيسؤوا بلينة الرعاء مدي قلبية له ولذا ألم ترى ميادا أغانيه ميادا أغانين علمي قابوا أوسن قالين
ila alladina kuwii xaggooda kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay walxaal hum iyagu uluufun kumanyaal ay yihiin maxay u baxeen oo guryahooda uga baxeen xadara almawti geeri mawt ka taxadaridiisa darteed geeri iyo mawt bay ka taxadareen ka cabsana car ay ka carreen faqaala markaasaa wuxuu yidhi lahum iyaga allahu allah wuxuu ku yidhi muutuu dhinta uma kadibna waa dhintay way macna uma marka kadibna axyaahum alla waa soo nooleeyey ina allaha maxaa yeelay ina allaha alle laduu fadlin dheeraadsiin midkii uu saaxiiba wey cala annaasi dadka dushooda la dheeraadsiiyo walakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yashkuruuna ma shukrinayaan waxay ahaayeen baa laleeyahay kooxa reer bani israa'iil ah dhulkii ay deganaayeen baa waxaa ka dhacay cudurro halisa daacun baa ka dhacay markaasaa waxay bilaabeen inay carraan oy ka qaxaan dhulkii daacunku ka dhacay oo dhibaatadu ka dhacay maxay u carrayaan yaydaan dhimanin daacuunkana intuu idin helo yaydaan dhimanin geeri ka carro iyagoo sii carrahaya unbaa qadar ilaahay ku yimid oo waxaa la yidhi leeda dhintani kulligood waxa way lugtay taagan waa wada dhinteen markay dhinteen kadib buu haddana alla dib ka soo nooleeyey subxana wa tacaala dib buu alla ka soo nooleeyey waxaa marka qisada miisaal lagu bixinaya laba arrimood baa looga danleeyay waa midda koobaade alle markaad dhimataan kadib inuu idin soo noolayn doono tusaale uta sooma oo waxaa lagu radinayaa qoladii arrinkaa ka doonaysay mushrikiintii carbeed iyo ilamid mas'alada labaad ee looga danleeya aayadda waxa weeyaan in layna yidhaahdo taxadarka iyo cararka geerida laga cararayo iyo asbaabta qaadashadeedu qadar ilaahay qadarin marna ma baajin karto meeshaad ku cararaysay baaba laga yaabaa inayba kaaga timaado waxaad ka cararaysa sooma saas weya meelaad isleedahay kuwa nabadgalba baaba geeridii kaaga sii horraysaaba marka maadaama ay sidaas tahay arrinka ilaahay baa maamulaya taxadarka ha ku xadfogaanin ha ku xadgudbina oo waa taxadaraynaa intaad tidhahdaan waajibaadkaa ka tegina alam tara miyaadan arkaynin oodan ogaanin oo cilmigaas uusan gaadhin ila aladiina kuwii xaggooda kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay walxaal hum iyagu uluufun kumanyaal ay yihiin xadara almawti geeri ka taxadarkeeda dadka geeri taxadarkii ay ka taxadarayaan iyo cabsi ay ka cabsanayaan darteed bay saa u yeeleen oo u baxeen faqaala markaasaa wuxuu yihi lahum iyaga allahu allah wuxuu ku yidhi muutuu dhinta saasuu rabbi u qadaray subxana wa tacala inay dhintaan sabab baa lagu keenay asbaabulmawt ka mida uma markaa kadibna axyaahum alla waa soo nooleeyey markay dhinteen kadib ina allaha alle maxaa loo soo nooleeyey ina allaha sababtu waxa wey ina allaha alle laduu fadlin midkii dheeraadsiin u saaxiiba wey cala annaasi dadka dushooda markay dhinteen kadib hadduu alla soo nooleeyo adduunka ku soo celiyey soo dheeraadsiinba innagana dheeraadsiinta inoo tahay waxa wey waa darsi aynan meel kale ka helay way macana iyo macluumo walakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yashkuruuna ma shukrinayaan rabbi subxana wa tacala nicmooyinka ilaahay uu gelayo dadka intooda badan kama shukrinayaan ee waa ku kufrinayaan way macana waficilun saas waqaliilun min cibaadiya ashakuur baa ilahi subxana wa tacala yani in yar oo addoommadayda ka mida unbaa igu shukrin intooda badan nicmooyinka ilahay waa ku kufrinaya subxana wa tacala waqaatiluu fii sabiili illah mas'aladana sidoo kaleeto waxay leedahay xadiista nabiga ku soo aroortay sal alay wasalam cumar bn khataab radi allahu canhu waa kii shaam aadi jiray shaam markuu usii socdo dhexda sii socda waxaa ka hor yimid hogaamiyeyaashii ciidanka markaasaa waxaa loo sheegay inay shaam uu ka dhacay daacun ka dhacay cumar markaa noqaal buu yidhi ka noqo goor isaguna doonayo inuu socdaalkiisa sii wato saxaabaduna ka noqo leeyihiin baa cabdiraxmaan ibni cawf oo meesha ka maqnanayo markaasuu yidhi war masalada anaa cilmi tahay nebiga waxaan ka maqlay buuri isagoo odhanaya haddii daacuun uu dhul ku dhaco haddaad joogtaanna ha ka bixina dhulkaa haddaad dhulkaa ka maqan tihiinna ha soo gelina saas ma cudurrada halistaa markay dhacaan meeshay ka dhaceen haddaad joogto inaad ka baxda lama rabo haddii aad ka maqan tahayna meeshay ku dhaceen ha imaani sidaas cumar meeshuu ka soo noqday marka waqaatiluu fii sabiili illah waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka ilahay ku dagaalama oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla samiicun inuu yahay midka maqla addoommadiisa midka maqla caliimun oo cilmiga badan ana allaha alla samiicun yahay caliimun oo yani waxa wey cilmiga badan inuu yahay markii laynoo sheegay taxadar iyo caraaridii inaysan marnaba geeri baajinaynin baa waxaa li mar hadduu arrinku sidaas yahay dagaalama oo ilaahay dartii u dagaalama waxaad la ogaataan rabbi waa idin maqlaya waana idinla socdaa xaalkiina waa ogsoon yahay macnaha waqaatiluu dagaalama macnaha dagaalka aad gelayso
ilaahay dartiina aad u geliso cadowga ilaahay aad la geliso geeriyada soo dadejin maayo saas macna meeshii waqtigii lagugu talagalay taxadarna kaa dib marin maayo dagaal aad gashay iyo meelo halisoo gashayna geeridaada soo dadejin maayo mar hadday sidaa tahay arrinku daacada ilahay mar walba ku dadaal weeyaan daacada ilahay iyo wax ilahay raalli gelinaya ku dadaal minahu awyani waa macna qaatiluu dagaalada fii sabiili illah waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle samiicun inuu yahay midka maqla caliimun oo cilmiga badan ya rabbi subxana wa tacala man da aladii yuqridu allaha qardan xasana man kuwa ayuu ahaaday daakaas alladii kaasoo yuqridu allaha alla amaahinaya qardan ama xasanan oo wanaagsan oo fa yudaacifahu alle uu u labanlaabo lahu isaga adcaafan labanlaab kaiiratan oo fara badan wallahu allana yaqbidu yani isaga ayaa laaba oo ciriiriya risqiga wayabsutu isaga ayaa fidiyo waasiciya wailayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinay tanna waxa weeye yani waxa weeye wax sadaqaysta oo xoolihiina ilahay u dhawaada subxana wa tacala waxaa laga cabiray ninka ilaahay dartii wax u bixinaya nin ilahay wax amaahiye o kaleeto jihaadkii iyo qitaalkiibuu ku bixinaya masaakiintiibuu ku bixinaya jidadkii khayrkuu ku bixinaya ruux ilaahay wax amaahiye o kale ka dhigay yaa ilaahay wax amaahiya ama waxaa looga cabirayaa waa nooc dhiirigelin ah haddaad ciddaad la tacaamulayseed wax siinaysa wax amaahinaysa waa la yahay rabbina subxaana wa tacaala amaahii aad siisay iyadoo labanlaaban uu kuu soo celin doono hade macnaha waxa wey maxaad xoolahaga wala baqaynay midda kale xoolo la bixiyaay kama timaado faqri kama yimaado maxaa yeelay faqriga iyo haninimadu labadaba xaggeeda laga timaado sooma wallahu yaqbidu wayabsutu wailayhi turjacuun xaggiisaa laydin celin doonaa isagaa addoommada risqiga u waasiciya kuu doonana ku cidhiiriya laakiin wixii idin soo galo ilaahay idin siiya jidkiisa ku bixiya man keewaya daakaas alladii kaasoo yuqridu amaahinaya allaha alle qardan amaahin xasanan oo wanaagsan amaahinaya xasanan oo wanaagsan oo fa yudaacifahu alla uu u labanlaabo lahu isaga adcaafan labanlaabid kaiiratan oo fara badan labanlaabyaal aad u badan oo aan xad lahayn bu ilahi u labanlaabaya subxana wa tacala yani duruusteena soo socotay suuraddaba waxaa ku imaan doona yani dadka nafaqaynaya xoolahooda bixinaya jidka ilahay ku bixinaya yani ilaa 700 ilaa ka badan bu ilahi u labanlaabaya subxana wa tacala wallahu allana yaqbidu midka laabawaya isaga ayaa laaba qabdiga waxa la yidhahda shayga lasoo laabaa la yidhahda laakiin waxaa laga wadaa cidhiidhiga risqiga isagaa cidhiidhiyo oo laaba wayabsutu isaga ayaa fidiyo waasiciya risqiga wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celin doona ha bakhiiliya marka xoolihiina ilahay ugu dhawaaday subxaana wa tacala oo baxsadoo jeedka khayrka ku bixiya way macana alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum ibcad lana malikan nuqaatil fi sabiili illah halkani waxa weye reer bani israa'iil oo ummaddii naga horraysay ah mawqifkoodii ay jihaadka iyo qitaalka ka istaageen yaa inaga laynooga digaya reer bani israa'iil oo kale ha noqonina intay yidhaahdeen dagaal ha naloo jideeyo oo hogaamiyaha naloo sameeyo oo ay aada ugu dadaaleen oo la kari waayey markay intay rabeenba loo sameeyey bay dagaalkii ka baxeen carreed fulayoomeen saas daraaddeed reer bani israa'iil qisooyinka laynaga siinayo waa duruus wax fiican ay sameeyeen haddii laynoo sheegayana ku daydo wax xun ay ku kaceen haddii laynooga warramayana iska jiro saas macna alam tara miyaadan arag ama aadan ogaanin oo cilmigaagu uusan gaadhin ila almala'i kuwii xaggood ila almala'i madaxyaweynkii xaggoodii almala waxaa la yidhahdaa ashraafu lqowm baa la yidhahda dadka meesha degan iyo bulshada ashraaftooda ama dadka dhaqaalo haysta ama dadka talada gacanta ku haya madaxda ah adiga jihada ay taladu ka godaan mala la yidhahdo mar walba alam tara miyaadan arag ama aadan ogaanin ilalmalai kuwii ilalmalai jamaacadii madaxyaweynta iyo ashraaftii xaggood oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah min bacdi muusa muuse gadaash id waqti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin nebi oo lahum iyaga u sugnaaday markay ku dhaheen ibcad bixi lanaa annaga waxaad noo soo bixisaa malikan boqor noo soo saar nuqaatil aan dagaalanay nuqaatil waanu dagaalami fii sabiilillahi jidka ilahi baanu ku dagaalami nin hogaamiya waabaanduula an noo soo saar noo bixi qaala wuxuu yidhi hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba haddii la qoro oo la waajibiyo calaykum dushiina alqitaalu dagaalkii haddii lagu waajibiyo laydinku qoro anlaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin ma dhici kartaa
dagaalkan hadda aad codsanaysaan inta lay dushiina lagu qoro laydinku waajibiyey inaad dagaalami weydaan qaaluu waxay dhahan wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila aanaan u dagaalamaynin fii sabiili illah jidka ilaahay maxaanaan ugu dagaalamayn waqad ukhrijnaa anagoo nala bixiyey min diyaarinaa guryahanagina laga bixiyey wa abnaa'inaa iyo carruurtanagina guryahanagina waa la haystaa carruurtanagina waa la haystaa ma rag dagaalami waayaanu nahay marka maxaa dagaal laga hor istaagay inaanu dagaalamo maxaa loo diiday inaan dagaalamo maxaa loo diiday falamaa goortii kutiba la qoray calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii markii lagu qoray ayay tawallow jeedsadeen ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida mooye wallahu allana caliimun kii og weeye bidaalimiina daalimiinta ilahay ogi daalimiinta oo kuwa noocaasee tilmaamahala rabbi waa la socda subxana watacala waxay ahayd qisadu waxay leeyihi reer bani israa'iil nabiyullaahi muusa calayhi salaam gadaashiis mudday sii fiicnaayeen oo toosnaayeen muddo markay ka soo wareegtay ayaa waxay bilaabeen inay inxiraafaan qaar inay sanamyada caabudaan qaar inay macaasida iyo dunuubta kala gedisan inay ku kacaan nebiyadoodiina weli qaar baa dhex jooga nebiyadii iyo dadkii akhyaartaana inay kala hadlaan yidhahdaan war waxaan daaya markii la keri waayey ayaa marka ilaahay wuxuu ku salladay ummad kalaa intay ku soo duushay ayay dhulkoodiina qabsatay carruurtoodiina laga qabsaday wax alla wixii muqadasaad iyo wax wanaagsan ay lahayn oo dhan lagala haday ayagoo keligooda baa meel loo baxiyey markaa kadib ayay isxusuusteen oo ilaahay u soo noqdeenoo nebi ambiyadoodii ka mida ayay waxay yidhaahdeen inaanu dagaalanaanu diyaar u nahaye nin hogaamiye ah naloo soo saaro oo dagaalkan na hogaamiya oo aanu ku dansafanno si aanu u soo dhacsanno war wixii nalaga qaatay oo u dagaalamo rag isaga celin dagaal kasta oy galaan waa lagaga qayn dagaal kastay galaan waa lagaga qayn waa balaaya hadda muslimiinta haysa dagaal kastay galaan waa lagaga qaynay warba nin hogaamiyaa noo soo saartay aanu gadaashiisa ka dagaalano waa iska celinay markaasaa rabbi subxaana watacaala qisadoodii baa laynooga warramaya waxaa la yidhi reer bani israa'iil madaxoodii iyo madaxweyntoodii iyo ashraaftoodii odayaashoodii warkoodi muusan ku soo gaadhin markii ay ku yidhaahdeen nebigoodii noo soo saar hogaamiye nebigeni waa hogaamiye abaanguule ah oo ciidamada dagaalka weyn nin aanu ku dansafanno jidka ilahi baanu ku dagaalamaynaahay markaasaa wuxuu yihi nebigoodii war ma laga yaabaa nimanoo dagaalkan aad ku hordaysaan haddii laydiin ogolaado ninka aad rabtaan waa laydiin soo saara inaad dagaalami weydaan oo say ku dhici kartaa bay dheen midaas oo wax dhici kara niman dhulkoodiina la haysta carruurtoodiina la hayso inay dagaalami waayaan wax dhici kara dagaalkii waa la laazimiyey waa lagu waajibiyey markii lagu qorayna intoodii badnayd waa jeesadeenoo waa carare dagaalkii waa ka jeesadeenoo waa diideen in yar mooyaane sidii uu nebigu ka cabsanay bay noqotay sooma ilaa reer bani israa'iil buu yaqaanaaya niman marka horeba fagfagtooda la keli waayo marka dambana le wax iskaadiya maa saas maana ayib alam tara miyaadan ogaan ila almala'i yani madaxyaweyntii iyo ashraaftii xaggood oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid aha min bacdi muusa nebi muuse gadaashiisa id waqti miyaadan ogaanin qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin nebi oo lahum iyaga u sugnaaday ibcad bixi lanaa annaga noo soo bixi malikan boqor ama hogaamiye noo soo bixi nuqaatil waanu dagaalamaye fii sabiililah jidka ilah waanu ku dagaalamaynaay haddaan noo soo saarto waanu dagaalamay waxbaanu iska celin qaala markaasaa wuxu uhi hal casaytum ma mudantigiinoo nimanyo ma laga yaabaa in kutiba haddii la qoro calaykum dushiina alqitaalu dagaalkii haddii lagu qoro anlaa tuqaatiluu inaydan dagaalamin ma laga yaaba inta ilahay dagaal idinku waajibiyo inaad ka soo bixi weydaan nimanyo ma laga yaaba qaaluu waxaa li wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila oonaan u dagaalamayni fii sabiililah jidka ilahi aanaan ugu dagaalamayni maxaa noo sugnaaday inaanaan dagaalamin fii sabiililah jidka ilahi inaanaan ku dagaalamin maxaa noo sugnaaday maxaa noo diiday walxaal qad ukhrijnaa anagoo nala bixiyey min diyaarina guryahanagii anagoo nalaga soo saaray oo nalaga hayso wa abnaa'inaa carruurtanadiina nalaga bixiyey oo nalaga hayso niman waxaanu nahayba tacab waxay lahaayeen oo dhan lala haro laga haystee mawqadiba noo yaalla wey falamaa kutiba markii la waajibiye oo la qoray calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii markii lagu qoray tawallow way jeesadeen ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida mooyaane wallahu allana caliimun kii og weeye bidaalimiina daalimiinta ilahi waa ogsoya subxana watacala ayib duruus kalea ku jirta aayaadkan inaad aada ugu fiirsataan balbaa ummad markuu ilaahay guul siinayo cadowgeedana guul ka siinayo marka ugu horeysaba guusha lama gaarsiiyo waa in horta la kala reebo
ummadii iswadatay isku duubnayd ay kala harhadho nin xun oo dhan waa in la reebo ninba meel baa lagu reebayaa inta ilaahay uu guusha siinayo waa inta xunkaaw inta ugu dambayso reer bani israa'iil halkaasoo kuma kala hadhin dagaalkii markii lagu waajibiyo layihi war dagaalkii waa lagu waajibiye gala maxaa la yidhi tawallow ilaa qaliilan minhum halkaa horta waa lagu kala reebay waltaa inoo mid adinku ah inoo noqoto waqaala wuxuu yidhi lahum iyaga nabiyuhu nabigoodii wuxuu ku yidhi ina allaha alle qad bacata wuu bixiyey lakum idinka wuxuu idiin soo bixiyey daaluuta daaluut buu idiin soo bixiyey malikan xaalo uu yahay hogaamiye isagoo boqor ilahay idiin soo bixiyey qaaluu waxay yidhahdeen annaa sideebuu yakuunu u ahaanayaa lahu isaga almulku boqortooyadu seebay ugu ahaanaysaa isaga calaynaa dushana walxaal naxnu anagu axaqu aanu nahay kuwa mudnaansho badan bilmulki boqortooyada minhu isaga aanu uga mudnaansho badanna oo walam yugta aanan la siinina sacatan wax waasacnimo walam yugta aan la siinin sacatan waasacnimo min almaali xoolaha xaggoodana aan laga siin min xoolo badan haystana maa qaala wuxuu yihi nebigu ina allaha alla istafaahu ilahay baa horta doortay aniguma dooranin calaykum dushiin wazaadahu ilaahay wuxuu u kordhiyey basdatan fidsanaan iyo ballaadni fi lcilmi cilmiga dhexdiisa uu ku fidsan yahay iyo waljismi jidhka dhexdiisa wallahu allana yu'ti wuu siini mulkahu mulkigiisa wuxuu siinayaa man yashaau ciduu doono wallahu allana waasicun waa midkii fadligiisu waasic yahay wey calimun oogsoon ciddii mudan in hawsha loo dhiibo waata meeshii labaad soomayna odhaniniyo hogaamiyo amaanduulaha noo soo saar oo melig ah wuxuu ku yidhi nebigii alla wuxuu melig idinka dhigay hogaamiye ah daaluut ninkaasaa laydin doontay oo laydin magacaabay ayib arrinkii nooca ah bay ka hor yimaadeen marka ma meel hadda boqortooyo laga wada hadliyo madaxnima yaa taalo ya niman dhulkoodii la haysto oo laguba suuduulay oo kayaan jiraba ahayn inay hadda madaxnimada ka hadlaan miye soo inay ciddii loo saaraba dhaqaajiyaan ma ahayn horta cadowga iska jeexan bal markaa kadib kursigu ha dambeeye ictiraaf bay ka galeen markiiba waa waxa hadda soomaali haysto qaran baa ka maqan oo dhul baa ka maqan oo cadow oo dhan baa isu kaashaday markaasay hadda waxay ku leeyihiin yaa madaxweyne noqona reer bani israa'iil iyo soomaali meelo badan bay isaga yihiin samoog yaa madax noqonaya reer maxaa loogu dhibay reer baa loo dhibay hadda taagay saas way macna warkaasi ma yaalla meesha marka waxay yidhahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna seebuu boqor loogu noqono boqortooyada see loogu dhiibay annagaaba ka mudan wanaxnu axaqu bilmulki minhu boqortooyada iyo mulkiga annagaaba ka mudane see loo sii ayib maxay mumaashaha ka wadan waxay ka wadaan baa laleeyahay reer bani israa'iil waxaa jira qoys boqorada iyo hogaamiyeyaashu ay ka imaan jireen qoysna inta badan waxaa ka imaan jireen nebiyada qoyska marka boqorro iyo hogaamiyeyaashu ka yimaadaan baa waxaa la odhan jiray yahuuda qoyskii kamaba dhalanin marka waxay leeyahay waxaani dhaqankeenigu khilaafsan waxay filayeen in laga soo saari doono qoyskay filayeen nin daaluud la yidhahdo reer kale ka dhasho reer bani israa'iil baa lasoo qabtay markaasaa waxay leeyihin ma aha dadkii boqortooyada lahaa taasi waa mid ta labaad weeye nin xoola haystana maa waa faqiir xooladu wax ku kala wado oo wax ku maamulana wax ku hogaamiyana male oo lagu doorto maxaa lagu maagabay ninka oo lagu doortay jawaabta u bixiyey fiiri nebiga wuxuu yidhi horta ilaahay baa dooray waa doornamo ilaahay dooray anigu idinma magacaabin taasi waa mid haddaad arrinka diidantihiin de ilaahay baad ka horjeedaan ta labaad weeye wax lagu doortayna waa jiraano cilmi iyo jismiba dheeraad buu ilahay ku siiyey subxana watacala cilmina waa idinla leeyahay oo aqoontii wax lagu hogaamin lahaa iyo siyaasadeedii waa leeyahay waa midda labaade jismi iyo xoog iyo caafimaad iyo awooddii hogaankana waa leeyahay ila rag markii lala dagaalamayo nin xoog badan baa lasoo qabtaa waa asbaabta hogaanka iyo madaxnimada laysugu doortay ka midta waa midda koowaad ruuxu inuu cilmi iyo aqoon leeyahay waa midda labaade jismi ahaan inuu ruuxu awooddii uu ku qaban lahaa xilka waa inuu leeyahay waa midda saddexaade fi suuratin yuusuf baan ugu tegi doonaaye ammaano waa inuu leeyahay ijcalnii calaa khazaa'ini ardi inii xafiidun caliimun marka sifooyin baa lagu doortaa ruuxa xilka loo dhiibanayo wax hogaaminaye reerna laguma doorto nasabna laguma doorto
meesha inaga qalloocsan bay kamta halkaasaynu ka qalloocsan war ninkana wixii ma wadi karaa tilmaamihii hogaamiye ma leeyahay wixii kan ma ka bixi karaa baa la isweydiin karaa laakiin waxa weeye reer hebel ma ka dhashay ma casiya ma madow yahay ma laandeer uu ka dhashay ma laangaab uu ka dhashay warkii reer bani israa'iil wey warkaas war saxna maaha saas macna warkaa markay keeneen war horta ninku intaana waa idinla dheeriya waa marka labaad ilaahay baa doortay allahna subxaana wa tacaala mulkigiisa ciduu doonu siinay ma idinkaa ilahay mulkigiisa la maamulo hadduu qaanuun siiyo hadduu nin kala siiyaba ilahay maamulkiisa isagaa iskale idinkuna ulama talisaan ilahi subxana wa tacala awoodba kuma lihidin saasuu ugu jawaabay nabigii calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam wa qaala lahum wuxuu ku yidhi iyaga nabiyuhum wa qaala wuxuu yidhi lahum iyaga nabiyuhum nabigoodii wuxuu ku yidhi ina allaha alla qad bacata wuu bixiyey lakum idinka daaluuta daaluud buu idiin soo bixiyey melikan xaal uu hogaamiye yahay ama abaanduule yahay qaaluu markaasa waxay yidhaen annaa sideebu yakuunu u ahaanayaa lahu isaga almulku boqortooyadu calaynaa dushannada walxaal naxnu anagu axaqu aanu nahay kuwa mudnaansho badan bilmulki boqortooyada minhu isaga aan uga mudnaansho badanna oo annagaa lahaan jirna wy macna ayib walam yumta aan la siinin sacatan wax waasacnimo ah min almaali xagga xoolahana wax waasacnimo aan laga siinin xoolo badanna aan la siinin qaala wuxuu yidhi nabigii ina allaha alla istafaahu allah doortay anigu idinma doorina allah dooray oo calaykum dushiina yani ku dooray ilaahay baa idinka dhiga hogaamiye wazaadahu alla wuxuu u kordhiyey oo uu idinka siyaadiyey basbatan fidsanaan iyo waasacnimo filcilmi cilmiga dhexdiisa uu ku fidsan yahay aqoontu ku fidsan yahay waljismi iyo jidhka dhexdiisa nin xoog badan wey dagaalna waa loo baahanya wallahu allana yu'ti wuu siinaya mulkahu boqortooyadiisa man yashaa ciduu doonuu siinaya idinku lama maamushaan wallahu allana waasicun mid waasac uu yahay weeye fadligiisu caliimun oo macnaha ogsoon waya ciddii mudan in xil loo dhigo oo mulkiga loo dhigo wey macna wa qaala lahum nabiyuhum ina aayata mulki an ya'tiyakum ataabuutu fihi sakiinatu min rabbikum wabaqiya halkaana mar labaad bay kala hadheen sooma mar labaad maxay tahay marka labaad markii loo magacaabay ninkii hogaamiyaha soomayna diidin qaarkood halkaana qolaa ku hadhay markii labaad ee la kala sifeeyey ee la kala reedo weli waa la wadaa wa qaala wuxuu yihi lahum iyaga nabiyuhum nabigoodii wuxuu ku yidhi ina aayata mulkihi qaanuud ninka la yidhaahdo mulkigiisa astaanta iyo calaamadiisu waxa weeye yacni inuu mulkigiisiyo boqortooyadiisu ay xaq tahay astaantii calaamada uu wato waxa weeye an ya'tiyakum inuu idin yimaado altaabuutu santuuqii inuu idin yimaado fiihi santuuqa dhexdiisa xaalo ay tahay sakiinatun xasilooni oo min rabbikum xagga rabbigiin ka timid wa baqiyatun iyo hadhaagaasoo mimaa shay ka mid a taraka uu ka tegay aalu muusa muuse aalkiisii iyo aalu haaruuna haaruun aalkiisii ay ka tageen taxmiluhu xaalo ay xambaarsan tahay santuuqaasi almalaa'ikatu malaa'igtii oo xambaarsan buu imaan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la'aayatan calaamo lakum idinka idinku sugan tahay in kuntum hadaatiin mu'miniina kuwa wax rumaynaya inaad wax rumaysan haddaad ujeedaan way macna tanna waxa weeye mulkiga maadaama ay dood keeneen si loo qanciyo baa wuxuu leeyahay astaan iyo calaamad baa laydin siin calaamadda iyo astaantu waxay ku tusaysaa daaluud mulkigiisa iyo hogaamiyenimadkiisu inay tahay saxda xagga ilahay laga turto aayadda maxay tahay waxaa idiin imaanay baa layidhi taabuutka wuxuu ahaa santuuq ay ku jiraan waxyaalo fara badan oo reer bani israa'iil ay baraka u jirtay aahaartii nebiyadii hore santuuqaasi markii ama ay tashanayaan ama ay dagaal galayaan ama ay go-aan gaadhayaan santuuqaasi ayay keensan jireen xasilooni iyo deganaansho ayaa markaa ilaahi subxaana wa tacala ku irsaaqi jiray waagii marka dagaalka lagu soo qaaday waxyaalihii laga qabsaday baa waxaa ka mid ahaa santuuqii carruurtii baa laga qabsaday wadankii baa laga qabsaday santuuqiina waa laga qabsaday intiiba waa ka maqanyay marka hogaamiyahan astaantiisu waxa weeyaan in santuuqiyo la wado laydin keeno nebiyadii hore haaruun iyo nebi muuse iyo waxyaabihii ay ka tageen ee hadhaagooda ahaa waxyaabo ka midana iyadana waxa weeyaan waa idiin imaanaysa waxay leeyihin waxyaabahaasi waa dharkoodii qayb ka mida baqaayaad oo ka hadhay masalan waxa way maaragtay ushii wax ka hadhay waxyaaba hadhaa oo nebi muuse iyo nebi haaruun ka hadhay ayadana waa laydiin keenayo malaa'igga wadaa keenaysa intaa maxaa loo keenaya marka su-aashaas intaa waxaa loo keenayaa in lagu qanciyo
ninkan hogaamiyuhu ilaahay magacaabay inuu saxyay yaa intaasoo dhan loo keenaya waxyaabaha idinka maqnaa baa laydin keenaya way macna saas weeyaan arrinkaana haddaad ku qalcaysaan nimayaho ood rumaysanaysaan astaan iyo calaamaad cadda ku sugan lagu qalci karo way macna wa qaala wuxuu yihi lahum iyaga nabiyuhum nabigoodii wuxuu ku yidhi ina aayata mulkigii boqortooyadiisa calaamadeediiyo astaanteedu waxa weeye an ya'tiyakum inuu idin yimaado attaabuutu taabuutkii inuu idin yimaado santuuqii inuu idin yimaado fiihi sanduuqa dhexdiisa xaal ay tahay sakiinatun xasilooni oo min rabbikum xagga rabbigin ka ahay sanduuqa laftiisa xasiloonidu ma watee isagu waa sabab laakiin xasiloonidu xagga ilahiga ka imaanaysa way macana wa baqiyatun waxaa kaloo idiin imaanaysa yani fiihi sakiinatun ba ahaatay wa baqiyatunna way ahaatay hadhaagaas waxyaabo soo hadhay oo mimaa shay ka mid a taraka ay ka tageen aalu muusa muuse uu ka tegey iyo aalkiisii uu ka tegey wa aalu haaruuna iyo haaruun aalkiisii ay ka tageen waxyaabihii laga dhaxlay taxmiiluhu xaalo ay xambaarayso sanduuqaasi almalaa'ikatu malaa'igta iyadoo xambaarsan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan astaan iyo calaamaa ku sugan lakum idinka ayay idinku sugan tahay in kuntum hadaatiin mu'miniina kuwa rumaynaya wax qaadanay falamaa fasala markii u socday intaa markii lagu yiri ayaa markaa kadib waxaa la bilaabay marka in ciidamadii la dhaqaajiyo biqiyaadati taaluut baa marka hogaaminaya ciidamada wata falamaa goortii fasala uu socmay oo uu baxay taaluutu markuu baxay biljumuudi ciidamadii markuu la baxay oo la socmay magaalada kala baxay ayaa qaala wuxuu yidhi ina allaha alla mubtaliikum wuu idin imtixaani alla wuu idin jirrabayaa reer bani israa'iil binaharin weli baa laydinku jirrabay waa oomayihiinoo socdaal bay galeenoo yani oon daran baxay meeshaasaa lagu imtixaanay in la kala reebaa la doonaya qaar badan oo aan yani iska labaclabaxay in la reebaa la doonaya welidaa ilahay idinku imtixaanay ee faman shariba ruuxii cabba minhu weliga xaggiisa ruuxii ka cabbaayay falaysa ma ahaanin minii aniga iga mid maha iraaci maayo meeshaasu idinku haraya waman lam yafcamhu ruuxii aan quudanin weligaas oo waxba ka cabinna fainahu isagu minii anuu iga mid yahay oo wuu iraaci ilaa man cid mooye iqtarafa darsaday gurfatan hal darsi biyadii gacantiisa hal mar darsaday mooye ayib ha cabina soomadi ha cabinadii ba laga soo reebaya ha cabina ruuxii cabbaayey igama tirsana nin uun hal mar intuu gacanta ku cadtoobsadoo gacanta hal mar darsaday uun cabbay mooye mar labaad ha ku noqon macnaha waxaa laydiin ogolaya hal mar gacanta ku qaata oo cabba wixii intaa ka soo haray ninkii yani ku dara oo sii cabbaayey iga mid ma aha ilaa man iqtarafa gurfatan biyadi saasaa lagu yidhi oo biyahan maa loo fasaxo biyaha waa la oomayihiina may cabbaan meeshaa ilaahay ujeedbuu ka leeyahayoo rag xun oo safka ku dhex jiro oo la socda baa la doonaya meesha lagaga tago warkoodu soo baxoo la ogaado laanna ayagoo safka ku jira haddii xaaladda dagaalka la gaado halis bay ummadda gelinayaan sooma waa in marka la reebo weligaa ha ka cabbinada fasharibuu way cabbeen minhu xaggiisii bay ka cabbeen ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida mooye in yartan markii hore wadani sooma ilan intii badnayd marka hore jeesadeen tawallow ilaa qaliil minhu somayna sooma in yar baynu wadani intii yarayd inteedii badnayd baa haddana biyihii ka cabtay ayib falamaa jaawazahu markuu gudbay boqorkii falamaa jaawaza markuu gudbay boqorkii togii markuu gudbay huwa isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa isagiiyo intii soo raacday ee rumaysay markay togii gudbeen ayay qaaluu waxay yidhahdeen intii yaraydee la socotayna waxay dhaheen laa daaqata wax awood ah lana anaga nooma sugaya alyawma maanta bijaaluuta jaaluud ninka yidhahda awood ma hayn iyo wa junuudii ciidamadiisa ogaana hora ku haday waranagu tawar mahayn bay dhaheen baaruudow nimanaan anagu la dagaalami karna maha qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwa yadunnuuna hubay oo yaqiininayay annahum iyagu mulaaqullahi alla inay la kulmayaan kuwii yaqiintaa qabaybaa waxay dhaheen kam in badan oo min fi'atin jamaaca ah ama koox ah qaliilatin oo yar ayaa dalabad ka raysay oo ka adkaatay fi'atan koox kaiiratan oo fara badan biidni illah idan ilahay bayna kaga adkaatay wallahu allana maca asaabiriina kuwa sabra ayuu mar walba alla la jira subxana wa tacala ciidamadii uu la dhaqaaj dhexda markay kusii jiraan buu ilaahay imtixaanay
hadduu alla imtixaanay weligu ku imtixaanay waxaa la weligaa ha kacabina inaad hal mar gacanta darsataan mooye ka badan maya intoodii badnayd baa ka cabay wax yar baa soo hadhay intii yaraybay u soo hadhay yuu kaxaystay oo togii la gudbay gaaladii oo uu hogaaminayo nin yidhahda jaaluut ayay iska hor yimaadeen markii layska hor yimid ayaa marka kooxdii yarayda la socotay qaar ka mida ayaa waxay yidhahdeen tamar aan maanta ku dagaalano nimankan kula dagaalano ma hayno dadkii culimadooda aha ee caamiliinta ay ahlul iimaanka ahay ee hubay inay ilaahay la kulmi doonaan ee yaqiinta qabay kuwibaa hadlo waxay yidhahdeen war waxaa badan koox yar oo koox badan ka raysay raynta iyo adkaanshuhuna badnaansho iyo yaraansho meehe waa idan ilaah soo saas ma marka nimanyahu yaraan ha u casalina ilahay baa inala jire kuwa sabruu ilaahay la jiraaye ha noqonina ina keena dagaalama saas maana halkana laba goor baa la reebay sooma laba goor baa halkana lagu kala maray oo la kala reebay mar weligii baa qaar lagu reebay sooma markan dambana qaamo jaaluut markay iska hor yimaadeenna waa la kala reebayo qolaa halkaana ku hadhay imise goor baa la kala reebay ya afar mise shan goor wahaakada jidka la hayo haddaad moodaysaan barrinta in la gaarayo guusha saas talagala saas weeyaan sunna rabbaaniya wey inaad dahnana u bahan sunanka kawnigaa ee aan muxaabaad iyo aan midna lahayne kulli in wada ay waajibsataa waxa weeye ninkii hadaf u socdo ujeeddo u socdaayo ujeeddadiisa intaa uu sii socdo in mar walba turunturo iyo caqaba iyo kufitaan iyo intaa ay udhaxayso macana intaana ilahay qasadku ka leeya waxa weeyaan mar walba in xun baa la reebaya kuwa xunoo safka ku jiray oo masaajida ku jira iska yeelyeelayo munaafiqiin aha ama iimaankoodu uusan dhab ahayn baa la reebaya saas macana mid baa dhacaysa waa la qola halaysa haddana waxoogaa baa soconaya mushkilo weyn buu haddana ilaahay keenaya qola kala hadaysa haddana waxoogaa baa la soconaya mushkilo weyn baa haddana hadsanaysa qolaa ku hadaysa inta ugu dambaysa khulaasada ee xulka baa marka guusha gaari doonta sida aayaadkana soo wada falamaa goortii fasala uu socday طالوت مركو سعمو عيدمدي ولا سعمو مديجين جنود عيدمدي مركو لا سعمو لا بحي ايا قال وحي ان الله عليه مبتليكم وإذن امتحاني إن هل نوديه إذن امتحاني فمن شهد روحي أعلم منه وإلى حديثة فليس معها مني أنا إذن معه وينحر يوم ومن لم يطعمه روحي أنقورني ووديك أعطاك عدلة فإنه يسوي مني أنا إذن السيع أو الرأي إلا من عدي موياني اغترف درسطي غرفة هل درسي يبقى عجيز هل مر صوتاتي ولا سنو كلي فشهدوا مركزي عبين منه وليه حق سيني كعبين إلا قليلا وحي ومنه يكم دوليه فلما جاوزه مركو بيتجي هو إسان طالوطا والذين كوي آمنوه بي معه لتشركيس كوي لتشركيس يسير متى تجي قدام ويستهر لمادين عربي أيها قالوا وحي لدن كوي الراعي لا طاقة وحوض allana annaga ma sugnaan al-yawma maanta bi jaalud awadaha la qulada galan iyo jumudii ciidamadiisa qaala waxa yiraahdaa alladina kuwa yadhunnuna yaqinuna annahum yadhum mulaqullah allah ila lakumaya mar walba yani guusha iyo raynta iyo geesnimada waxa ku jirta inaad hubto inaad ilaahay la kulmayso subhanahu wa ta'ala min ilaahay la kulankiisa ma ka shakisan waa fuliye min ilaahay la kulankiisa huba rajada kaba goortu ilaahay la kulmo inuu adiye ka raysanayo ninka taageysiya soma waana midda nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo dulliga ummadda islaamka waxa ku diday yani xubbu dunya wa karahiyatul mawt reer israa'iil fulaynimo ku diday loo barreeyay inba inaga fulaynimo ugu diday loo barreeyay yaqiin hadii la qabo in ilaahay la kulmo aakhira ay dhaanto adduunyada oo aakhira la socdo lama xasray سوساسما مركز قال الذين كل واحد يظنون يقينون أنهم يجب ملاقون الله الله إلى لكم ميان لكم كإله وضع مؤدينا كم انبغا أي إله من فئة كوحة قليلة أوير أي غلبت كريسي أو كأبكاتي فئة كوحة كثيرة فربضا بإذن الله إله إذن كس والله أعلم مع الصابرين كو صبراء يلشرا يا رب سبحانه وتعالى جربك يدرك وليه وبوشتنا يا رب سبحانه وتعالى آيات سمرك واحد في المارسة يعني حديث صحيح هذا صحيح البخاري وعقص أروري نبي محمد صلى الله عليه وسلم كواحد يلسع عثمان في بدر هي طالوت كواحد يقصوا هذي تيرانو بين سنكاين صحيح البخاري بيجي حديث كس
فسمعنا طيب ولما برزوا مركي ضمبحان لجالوت جالوت مركي ضمبحان وجنود إلى مجلس مركي ضمبحان وضمبحان ويسوسوا بحي أي قالوا وحيدا ربنا ربنا أفرق الشب علينا بشنا الصبر إله الصبر لبشب فوثبت الله الصب أقدامنا جملها الذي يمولها لك إله الملك كسره فلمية عرنا إلى وانصرنا أنه الله جار الله على القوم قوم في سأل الكافرين قالوا إله الله فهزموهم ويتشريين بإذن الله إذا إله من كتشريين وقتلون إليه داود إليه جاموت قال وتي وآتاه الله إلهي داود السيد داود الملك بقرطيري والحكمة النبي مسودة وعلمه الله وحبر النبي داود مما يشاء وحبر حديثه وكبره ولولا دفع الله قائد الوطن ولولا دفع الله خيريد إله هذين الشرين الله تذكروا الرمي بعضهم قاركوك الرمي ببعض قارك كل رمي لفسدت الأرض بك وفسادها ولكن الله لكن الله ذو فضل ديراتي مثل صحيح على العالمين أنك بجزاء الديراتي معنى يحوي قولوا لي يريد قصوا هذين كل كاهل markay jaaludiya ciidamadiisa iska hor yimaadeen ilaahay bay inta tabreen sidaas weeyo boorta dagaal galayso kun ilaahay baa loo carba sunnadiga musaabaha maalintii badal yani cabishkii uu jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam gacmuhu siduu kor ugu taagay ilaahu Abu Bakr nabiga uu naxay sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay ilaahu maanta iihi ilaahu kooxda yeelka maanta hadii laga adkaado dhulka lagu caabudi maayo marka cidda ugu horeysay aadi boorta dagaal galayso waa Allah subhanahu wa ta'ala sida ay kooxda basameeyeen waxay yidhahdeen rabbiga noo dushannada sabir ku shub sabir lagu soo dejiyo lugaha nagana sugo ilaahu carab naga ilaali gaaladana ilaahu nooga hili way jabiyeen rabbi subxaana watacaala maxoog iyo awoodda ku jabiyeen tooda biidni illah wataala kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهو البليل إله بقعه منك شوية إذن الله بكل شوية إذن الله بكله فإنما هو واقع المهمة والعقيدة له markay jabiyeen jabintii qaybo ka mid ah la tilmaamay oo nabi daawud oo ciidanka la socday ayaa wuxuu dilay hogaamiyihii gaalada oo jaaluut la dhigay nabi daawud halkaas ilaahay wuxuu isugu daray boqortooyadii oo madaxnimadii ah markii daawud dhintay kadib isaga noqday hogaamiyihii iyo boqortooyadii la waday nabinimada ilaahay waa ugu daray oo nabina waa ahaa malikna waa صاصا سيدنا ملكي سليمان عليه الصلاه والسلام سيدنا سليمان انت مركي لو شيء واحد وليد الهي وحو بري وحو ضرو وكبر هو هو اللي بري داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم برادية سيدنا الله سمي الدجال اللي اسكا يجي اي الهي بر سبحانه وتعالى ساسوين وحمك لو درجوي hadii aan dadka ilaahay isku reebay oo qaar kale uusan ku reebay markuu waa fasaad lahaa ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله من بلغ إله المرء عبدها هي ودين تنروح هي اللي بربريها هذا ذلك إله اسمه من سبحانه وتعالى ومنك كبرة من أرياء قهر تضوى الله يعلمه كيف بربرية حدوث الإله القصة صار لهين هذا واحد من العبادة الملك ولا الله مقاتل المتكبرين تابوك الأصوات ووحي ذلك الإدانات معادلة وإنه يكسسه منك كبرنا روح بالله مصاب إله سبحانه وتعالى أمرنا بالله كسو صار يكسدسه وأدوني من يصبرته وما شكرين كويس وإلا هذين ساعة هو هاي هذا واحد ويان نبا نبا لكي سنة فساد بلوك نحن معنا طيب فولما قرد برزوه أي أصابنا بلغ مكي بمدحان لجالوت مكي أصاب بمدحان وجنود عدوي بسي أي قالوا إلى ربنا ربنا الله أفرقشوا علينا بشر والصبر إله سبب الرشد وثبت إله سوء أقدامنا دونها لك يمغها لك وانصرنا إله الله لي على القوم الكافرين قومك جعلنا الله به فهزموهم ويتشريا بإذن الله إذن إله كتشريا وقتله دل داود جالوت أيدري وآتاه الله إله بسي داود الملك بقرطوية والحكمة الذي يجب سي وعلمه الله وحبر مما يشاء وحبر الله وحكبر وكمتاه إلا برقات الله ولولا دفع الله ذكر يدي سوادين سنشير الله دفع الله الذي يدي سوادين سنشير الله الناس ذكر الريوي بعضهم قاتل الريوي ببعض قاتل كل ريوي
اسكو ريفيريدا سابين تشير لهين لفسدت الأرض دوك وفساد لها ولكن الله لكن الله ذو فضل منك ديراتين وصاحبها على العالمين أنكم وندوشي سلم ديراتين فرضي سابراتي على الدفع السنة أي قتل هذا هو التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.